qisa cajiiba wuxuu magaalada la xalab ee Suuriya ku taala ayaa waxa jira nin xadaad waa tumaale dadku u imanayaan war hebelow ilaahay noo bari qof iga xanuunsanaya war ilaahay idinku bariya ordo bariya marka ku cilciliso Allah ku bariya waa nin cajiiba waa mustajaabu dacwa mid kala u imanaya waxba iga siiya wacaynka bil ilaahay bari hadduu afka kala qaadaba adaaba arkay buur waa tumaale waa yaabni buur war tolow ninkii waanu soo qastay buur waxaanu soo kaxaysay gaari waa nimid dadana ninkii gurigaan ugu tagay waan wareystay teete wuxuu imka ku warramay maaye barito subax igu kaale meheradeed waa halku ku garaaco teete halkii baan u tagay meel gaar uu ila baxay wuxuu waxaan doonayaa horta qadiyadan waan qariyay buur laakiin maadaama nin sheekh tahay oo umada wacdiyo wuxuu sheega waxaan kuugu sheegaya inaad magacayga iyo magaca sawjadaba qariso laakiin umadaadu sheegto talaabada aan gal waayo wax qiimo badan oo wax tar leh bali waran buur wuxuu yiri xaas baan guursaday intii sharciga ahayd baan ka eegay wajiga iyo labadii gacmood reerkiina waa ku qancay waa gacanta la isu dhiibay waa la heshiiyay waa la meheriyay waa la qalgalay mar alla markaan qalgalay ayuunba waxaan ogaaday xaaskaniba inay uur leedahay xaraan ah oo waliba 7 bilood ah markaasaan fajacay buur tala way igu ciirtay war maxaad yeeshaa subax caawa intaan waago baryin ma furtaa mee waaga ma la sugtaa may xal kale ma u raadisaa waanigi baa fajacay buur waan rogrogay salaad baan galay iska ducaystay waxa igu soo dhacday war way intaas oo ilaahay islaaxiyay qofkuna wuu noqon karaa qof mar dambaabe lacagta u dhig way teetana waan iska tukaday salaadii bay gaadhay iska tukaday iska shaqo tagay iska soo qada tagay kaanama ina waxba ba jirin teetana dhowr habeen markaan joognaa habeenkii dambe wareeso afka u kala qaaday saytiri dambiga noocaas aan galay ilaahina waan uga toobad keenay ilmahana xaraan buu ku calool galay waxaan sugayaa intuu dhalanayo toobadna suuxan ilaahay waan uga toobad keenay astur ilaahay ku asture way waan ku asturayaa mid iga ballan qaad ina dariiqa saxda ku dhaqmayso inta noloshaada ka hadhay oo aanad warwareeg yeelanin kitaab jaamaca ku martibuur teetana waan sugay way gaadhay xilliga umulayd teeta wuxuu yiri waxaan ugu yeeray gabadh magaalo kale aan ka doonay oo aan anigana garaneyn iyadana garaneyn baa ka umulsay teetana waa la hagaajiyay ilmihii waa laga shaqeeyay dhag waan soo qaaday buuri salaadii subax markii la galay ee lagu jiray ayaan soo qaaday hareeraha intaan iska eegay ayaan kadinka masaajidka dhinac uga yar dhigay salaadii iska galay waan ku yara raagay salaadii iyo digrigii markii dadkii ugu horeeyay degdegay soo baxeen shaqaaqdii ilmaha ayaa ku war heleen waa la isku kacayo ilmo yaro la soo tuuray baa jira halkan waa anna sidii nin xoogeen baan iskaga habsaamay digrigii aankaasoo kii ugu dambeeyay soo baxaan noqday waa bal warraba maxaa jira ilmo yar baan halkan ka helayo dee waa kanoo halkan la soo dhigo waa ilmo kale aan xalaal ku dhalan oo talo yaa war ma haysan cid alla cid la og yahay oo lagu og yahay ma jirto bal sheekh aniga ma idigu ducayn aniga haysan doono korin doone aniga ma idigu ducayn هاي والله هذا نكون دعينا خير الله دعاء قبي جميل تذكي شوقي ولا يقول دعيب تقولي بينتهم قاعدة بصلي جاية محكمة ده كساقرني المها يرون هاللي ومساج كانوا كهاللي إن أنا قال لي يقول دعيه وأنا أنكريه وأنا حيه اللي يقول دعيه تنا سيدي بالليالي هو يدي سوى نقول سعودية تذكر واحد وهايستان المها أن بنان كهاللي حقيقة هو معي islaantana dhashay sidii baan u ilaalinayay ubad badan oo ilaahay iga siiyay gabadha lu khayr noqotay ilaahay fadligiisa wuxuu ilaahay iga dhigay kelmadan alla baryaba inaan dhaxso u helo xataa aan iga raagin muxuu ninkaas ku gaari asturaad iyo islaaxin iyo hagaajin haddii laakiin qofka oo xun oo xumaantii ku jira aad asturto taas iyadu taama laakiin qofka mar qaldamay amaba qalad hore ku jiro dib uga soo laabtay waa in la islaaxiyo waana shay aad iyo aad u muhiima
laakiin xumaanta la qarsado sax maaha nebiguna wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa yadkhulu اljannata dayuus dayuuskuna waa ayo waa ka aladii yuqiru calى ahli اlkhabas ka ehelkiisa xumaanta u ogol inay raagaan inay meelaha maraan inay cid kale la hadlaan inay xijaab la'aan ku baxaan inay meelaha tagtagaan waa dayuusnimo wey dayuuskan isku caynaana waa dhaqan xumada halka ugu